kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada janalkeena ka wararkan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada ugu waaweyn waxa qayb ka noqon doona madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed oo markaas dacwad kan ah arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo gudida lagu muransan yahay u gudbiyay Ra'iisul Maxamed Xuseen Roble oo ku saabsan ayaa daawo doontaan saaxiibayaal soo kale waxaan idin soo gudbin doonaa midowga musharaxiinta mucaaradka oo markaan sii kala dhimanaya isbahaysiyo cusub oo dhinacyadu ay kala sameeyeen haddaba sidee loo kala baxay soo gudbin doonaa mucaaradka dalka Turkiga waxa ay dalbadeen in baaritaan lagu sameeyo tababarada ciidamada Soomaaliya ee dalka Turkiga haddaba waxaan soo gudbin doonaa war ay mucaaradka ay u soo direen baarlamaanka dalkaas iyo Soomaaliya soo kale waxaad daawan doontaan wararkii ugu dambeeyay waaweyn oo ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose oo lagu dilay dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa warar kale ee gobolka Geeska fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe ku saara gambarka kana furo oo share garay saaxiibadii meel kasta joogaan idinku markaas kuma taga like-na inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin waxaan ku bilaabaynaa madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa la sheegay markaan in xog iyo fariimo adag ay la wadaageen iyo dacwad كان arrimaha ku saabsan guddiga doorashooyinka ee lagu marinsan yahay oo kala hore ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu sheegay inuu xalin doono wareedo lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay sheegay in madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh iyo Shariif Sheekh Axmed ay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble u gudbeen cabasho ay ka qabeen sida ay baaris ay u sameeyeen guddigii heerka wasiir ee loo soo saaray kala saarista xubnaha guddiga doorashooyinka ee cabashada laga gudbiyay labada madaxweyne oo sidoo kale musharaxiinta ومشرحين ayaa qoraalkooda u gudbiyay Maxamed Xuseen Roble waxayna aragtida ay kaga dhawaadeen hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Sameek kaas oo ahaa in guddigii ay weli ay ku jiraan xubno ka tirsan ciidanka NISA iyo taageerayaasha farmaajo soo kale xogtaan in la ayaa tilmaamaysa inay cabasho ka ahaayeen liiska guddiga oo ay ku wareejeen Mr. Roble la filayay iyadoo aysan bilantu ay sidaas ahayn Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in aan wax wada tasha ah laga yeelan qaabka baarista isla markaana aan la wadaagin natiijada ka hor inta aan la shaacin iyaga oo markaas qoraalkooda ku dalbaday in dib u eegis markii la sameeyo si loo helo doorashooyin aan boob ku saleysnayn isla markaana lagu wada ganacsan yahay shaacinta liiskan ayaa loo arkaa qorshe looga hortagayo in gadaal laga fargeliyo liiska iyada oo markaas la tuumayo inay ka dambayso fila Soomaaliya si mucaaradka loogu dhigo kuwa cabasho joogto ah wada Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo musharaxiin kale oo ka tirsan midowga musharaxiinta ayaana weli ka hadleen arrintan waxaana la sheegay in qaarkood ay si hoose u gudbeen cabashadooda ku aadan arrintan sababta aysan Xasan Sheekh iyo Shariif Sheekh Axmed si shaacsan ay uga hadlaan arrintan ayaa lagu sheegay inaysan doonin inay culays siyaasadeed saaraan Roble oo ay u arkaan in wax badan ka qabtay arrimihii la isku hayay balse ay rabaan in wax walba hoos loo xaliyo dhanka kale golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa markaan waxa ay sii noqonayaan kuwa markaas si kala jajabaya isla markaana si kala furmaya kadib markii awoodda doorashada uu iska wareejiyay madaxweyne Maxamed Farmaajo isla markaana uu ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble golaha midowga musharaxiinta ayaa markaan sameeyay isbahaysiyo kala duwan oo saddex dhinac u kala jabeen wareegyo muhiim ah ayaa xaqiijiyay midowga musharaxiinta mucaaradka ay u kala jabeen ilaa saddex qayb ama kooxo waaweyn oo waxaana lagu sheegay sababta kala qaybisay ay tahay arrimaha doorashooyinka xogta aan la ayaa tilmaamaysa dhinacyadan ay iskugu dhawaadeen qabiil ahaan iyo qaar iskugu dhawaadeen isbedel doon dhiig cusub ah ama siyaasiyiin cusub ah musharaxiinta kale ah Maxamed Siriin Cabdulqaadir Cusub iyo Cabdinuur Maxamed ayaa la sheegay inay sameeyeen isbahaysi cusub kadib kulan ay daraad ay ku yeesheen Nairobi musharaxa kale ee Cabdinaasir Cabdulle oo kulankaasi qayb ka ahaa ayaa la sheegay inuu ka cudur daartay isbahaysigaasi inkastoo uu ku jiro mid kale sidoo kale siyaasiga Daahir Sheekh Maxamuud Geelle Cabdinaasir Cabdulle Mustafa Sheekh Ali Xulu iyo Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa dhankooda sameystay isbahaysi cusub halka Sheekh Shariif Sheekh Axmed Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xasan Cali Qare ay dhankooda noqdeen isku dhinac wararka aan la ayaa sidoo kale sheegaya in siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Sameek uu ka cudur daartay isbahaysi cusub oo laba jeer loo soo bandhigay waxaana la sheegay in kaligiis uu yahay musharax taagan inkastoo ugu dambeyntii uu ku qasbanaan doono inuu isbahaysi sameeyo sidoo kale Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ah musharax kaligiis taagan oo aan isbahaysi qayb ka ahayn Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa xadii noqday musharaxa kaliya ee si cad ugu soo horjeestay go'aankii guddiga uu magacaabay Roble ay 34 xubnood ugu saareen guddiga doorashooyinka isaga oo dalbaday in dhammaanba 67 xubnood laga saaro halka inta badan musharaxiinta ay soo dhaweeyeen ama ay ka aamuseen tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu madaxweyne Farmaajo awoodda doorashada Soomaaliya ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxaa jiray kala furfurnaan mucaaradka dhexdiisa ah maadaama ay soo dhawaatay
doorashada oo musharax kasta oo loolonkiisa iskiis u galayo taas oo meesha ka saaraysa cadaadiska badnaa ee saarnaa madaxweyne farmaajo ay ku hayeen golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ah isla markaana ay maalin walba dhaleeceen joogta warbaahinta hawada ay u marsiin jireen haatan wuxuu u muuqdaa mid markaasi dheelaya ciyaar cusub iyo markaas siyaasad furfurnaan ah oo ku dhahan inuu adeegsado dhinacyada kale ee dowladda ku jira sida masar rooble oo loo arko in uu markaas dhinaca madaxweyne farmaajo yahay inkastoo hadda midowga musharaxiinta ay soo dhaweeyeen ayna ku tilmaameen mid dhexdhexaad ah haatanna kala qaybsanaantan ayaa imaanaysa ayadoo markaas ay xaalada arrimaha doorashooyinka ay sii socdaan isla markaana la rajeynayo in dalka doorashada ay ka dhacdo maalmaha iyo waqtiyada kale ee soo aadan oo la qorsheeyay in 60 maalmood gudahood dalka doorasho ay kaga dhacdo inkastoo waqtiga hadda ay ka harsan tahay 48 maalmood qaybihii hore ee janalkeena ka wararka ayaa daawanaysaan saaxiibayaal fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe ku saara gambale kana furo una share garay saaxiibadii meel kasta joogaan idinkoo markaas kumentiga iyo laagina inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin markana dalka Turkiga baarlamaanka dalka Turkiga ayaa laga dalbaday inuu baaritaan degdeg ku sameeyo eedeymo kan ah shirkad kamid ah qandaraasleyda gacasaarka dowladda leh madaxweynaha dalkaasi Erdogan oo laga yaabo inay ka dhaceen dalal ay kamid tahay Soomaaliya asigan ayaa waxaa baarlamaanka dalkaas u gudbiyay xisbiga ugu weyn ee mucaaradka Turkiga ee CPH ugu magacaabo wuxuuna codsigaasi yimid kadib markii ay soo baxeen eedeymaha ah ee Z International Defense Consultants ay maleeshiyad ku tababarto dalka Suuriya iyo dalal kale oo Soomaaliya ku jirto eedeymaha loo jeediyay shirkadan ayaa waxaa ka mid ah inay taageero qalab iyo mid tababar ay siisay shirkada lagu magacaabo Al-Nasr Front oo ka dagaalantay gudaha dalka Suuriya taasoo xiriir dhow leh ururka Al-Qaacida gudoomiye ku-xigeenka xisbiga CPH ayaa qoraal loo gudbiyay baarlamaanka dalkaas ku sheegay in tallaabooyinka ay qaaday shirkadaas ay xadgudub ay ku yihiin shuruucdaha markaasi shuruucda qaramada midoobay iyo guud ahaan kuwa caalamka gudoomiyaha xisbiga CPH ayaa baarlamaanka dalkaas ka codsaday in baaritaan lagu daro haddii shirkadaas ee markaasi ay tababaro militari ka samayso dalalka Soomaaliya, Syria iyo Liibiya xisbiga CPH wuxuu rabaa in dadweynaha uu la socodsiiyo arrimaha ku saabsan shirkadda in la baaro dhammaan howlwadeenada militari ee caalamiga haddii ay tababaro militari ay ku bixisay dalal ay ka mid yihiin Suuriya, Liibiya iyo Soomaaliya iyo haddii ay jirtay hub sharci darro ah oo jibinaya baaliri shuruucda golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xisbiga lagu magacaabo CPH ee mucaaradka weyn dalkaas Turkiga shirkadda ayaa bixisa talooyin dhanka istiraatiijiyadda iyo taageerada xoojinta ciidanka waxaana la sameeyay shirkadda sanadkii 2012 shirkadda ayaa waxaa aasaasay Adnan Tandrov oo ah jeneraal howlgab ah wuxuuna sidoo kale ahaa la taliyihii Erdogan ee arrimaha militariga intii u dhaxaysay sanadihii 2016 ilaa iyo 2018 waxaana uu u shaqeeyay ilaa iyo 200 oo saraakiil howlgab ah inta badan saraakiisha howlgalka ah inta badan saraakiisha howlgabka ah ee ka tirsan shirkadda ayaa waxaa la rumaysan yahay inay markii horeba ay shaqadooda ay ku waayeen sabab la xiriir ah daacadnimadooda diinta islaamka dowladda Turkiga ayaa Muqdisho waxa ay ka dhistay saldhig weyn oo ciidan qaas ah oo ciidan kaas oo ay ku tababarto ciidamada militariga Soomaaliya gaar ahaan ciidamada loo yaqaan Gorgor kuwaas oo loo diyaariyay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab guud ahaan daawadayaal wanaag inta wararka weyn ee Soomaaliya aad kala socotaan janalkeena ka wararka fadlan ha ilmaamin subscribe ku saarsan gambale kana furtaan una share garaysan saaxiibadii meel kasta joogaan idinkoo markaas kumentiga laagina inoo reebaya aad baad ugu mahadsantihiin la socoshada iyo waliba ka qayb qaadashada inaad nagu dhiirigelisaan had iyo jeer inaad si share garaysaan gambale kana furtaan kana qayb qaadataan dib u dhiska dalka aan ku sameeyno